guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ayaa u jawaabay warqad qaramada midoobay ka soo baxday wakiilkeeda gaarka ah James Wan waxaana warqadaasi ahayd inaanay ku filneen muddo kordhinta loo sameeyay waqtigiis diiwaan gelin karaan musharaxiinta gadoodsan ama aan ku qanacsanin guddiga sidii wax u wadaan ee xildoonka ah waxaana guddigu sheegay inaysan ka dib marin maalmihii ay ku dareenayaan ilaa 22 bishan gudoomiyaha guddigaas ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan James Wan u sheegay in Jubbaland guddigeeda aysan muddo kale oo dheeraad ah iyo tanaasul aysan sameyn doonin doorashada waqtigii loogu talagalay ee 22 bishan Agoosto ah aysan ka dib mari doonin arrintaas waxay abuuraysaa walaac waxa sadaba yaala digniino hore u soo saareen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobay wakiilkeeda gaarka ah haddaba sidee xal lagu heli karaa oo ay dhinacyadan haddii doorashadan qabtaan maxay noqon karaa madaxweynaha cusub ee la dooran doono miyuu go'doon gali doonaa waxaan su'aalahaasi aan weydiiyay wasiir hore Cabdikariin Nuur Xaashi Doobere bismillaah alxamdulillaah ana ku mahadcelina xuseen idaacadda ariga wallahi barakeeyo iyo shaqaalihiin kala madaalayaashaaba wariyaasha runtii waxa weeye waa ayuu bini'aadamka qofka quality-ga ay geliya mana u goon u yahay adna guud ahaan wariyaasha waxa weeye ay ka shaqeeyaan waxa weeye mas'aalaha ummadda ka shaqeeyaan haddii aan su'aashaadii u soo gudbo horta ninka la yiraahdo Axmed Madoobe markii hore hadda madaxweynaha uu noqonayana waan ogeyn waa soo maray wixii ku xigana process-ku maray qaabka uu soo wanaagsanay bulshadana kulli way ka darsan tahay alshaan siyaasadda Soomaaliya inaysan ahayn mid ku dhisan dastuur iyo xeerar la qortay inuu meesha marka isleeyahay gacanta dad ku reeray ku jiraysaa inuu alshaan gacanta ka gashado aksoo waaweyn marka ana waxaan isleeyahay way cuslaynayaan oo runtii hadaladaas dawladda ka imaanaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo meesha caalamka way cuslaynayaan laakiin uu ka dabaalo doono oo maaragtay alshaan madaxweynaha Jubbaland soo noqon doono ayaan aad iyo aad u malaynayaa مثلها عليسة هذا الصوص عريا وقت الدولة فدرك الصومالية ميربي إسكتاكتي هذانا وحاسين لهم إذا سيد الدولة عليس كل حقوق لو صارية باش عالمك جران UN كواد سؤالك كل جوي دي جدي ضربات حقوق لنا هردية الدولة علشان واحد فينا له أيوة نبتكر مركز رتنا علشان السياسيين ملاحظة مركز هنا فرصة فيريان حرب الشغل وضع أوقرا maaragtay waxa weeye sidii marka isleeyihiin oo fursad ku heli kartaan ay ka shaqeeyaan inta dadka kale sidii joogan ayaga oo macallin oo si ayaga dawladda dhaxayna u dhaqmay arkaan ayuu hadda dabaqayaan marka waxaan isleeyahay inay dawladda ka bariso sax maahan qofka bini'aadanka ah alshaan maxamuud wana raji balana holo kulli wana hogaamiye inuu soo baxay in kala soo baxan kulli waxay ku garan tahay maaragtay bulshada meesha degan iyo maaragtay ay codkooda siiyaan marka ana waxaan dhihi lahaa in qolana waxay ay soo saartay sida quraanka loo fiiriyo la yiraahdo maartay coordination shift iyo la ka tagtan iyo hoos dhawad kordhi ka dhigtay qolana ay alshan sharciga isaga furnaatay si doonta ay ka yeeshaan ma saameyso marka dawladda dhexe waxaan aftu soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay maartay culayska maroojinta ka bixiso qofka bini'aadanka waxa fiican maartay la tuso xajal iyo kalsooni wax wada lahaansho laakiin haddii loo tuso maartay qofkan maartay birta si gooni loogu gudo hadda say waxa weeye waxa ku hareeraysan oo dhan ilaaliga uu gacan gala waxa weeye ama Itoobiya ama Kenya ama mucaaradkan kala duwan u qaadnaa waxa soo dhan waxay noqonaa bay marka waxa fiican in qof la sii fogay waxa ka fiican maartay laakiin wasiir maxaa keenaya in musharaxiintii iyo siyaasiyiintii gudaha dalka dawladda federaalka beeshii caalamka isaga ay farkooda fiiqaan laftirka soo meesha culays muujin mayso inuu jiriyo qaad aniga waxaan aaminsanahay Axmed Madoobe sida oo wax ku wada ma ahan alshaan sida oran ugu soo sheegaan dawladda laftirkeeda markii ay soo waxay fursad ka helayso gacanta gashataa waa tandahay asaguna sidoo kale uu sameeyay marka dayaga macallin ugu ay la yaabin hadda waana markii alshaan ay geenay lafta garan waa joognay soo westigeynayeen waxa galmudug ka socdaan ogsoonahay waxa ay rabeen in hadda ka soo Jubbaland marka dawladdu alshaan
hala shaqeyso wixii soo baxa calashaan haddii fursad keeni kartaa haddii walba maaragtay meel fadhimayn laakiin waxa weeye calashaan in ayagu waxay ku tumanayaan oo markay doonaan say doonaan u dhigayaan ay calashaan nin lahaan ma taaban kartid sax maaha sababta iyadaa u macallina marka haddii dowladdii ay tiri aqoonsan mayno si walba oo ay dan gaar u yeelato ama dan guudba ka dhigato waxay dalka iyada dowladka ah hadday aqoonsigii kala laabanayso oo ay international community-giina ay leeyihiin aqoonsan mayno wixii aan sharci ahayn ee Jubbaland ka yimaado dalabaadna ay muujiyeen oo laga dhaga adeegi muxuu noqon karaa doorasho Jubbaland ka dhacday madaxweyne la doorto hadduu isaga soo baxay haddii qof kala timaadaba horta dowladan hadda mandateki waqtigeedu waa iska dhalow yahay waxaan u malaynaa hadda sanad iyo wax lamid waxaan ka badanaynaa waqtiga ka dhiman haddii xataa ay ku adkaystaan dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha ay aqoonsato hadday in aqoonsadiidu hadday ku adkaysatana waxa weeye sideeday kusii jiraysaa Jubbaland fursado dhaqaale iyo maaragtay iyo qarashaad iyo dekada iyo alaabiyana waa haystaa waa nuuc iska jamhadaynay noqonaysaa oo maaragtay calashan inay markaas cidda kala imaanaysaana ay iyagu maaragtay walxaar usii sameeyaan oo waxay noqonaysaa galaanka loo kala yeesho loo kala doonto sababtoo Jubbaland meel fudud ma ahan ninkan hadda madaxweynaha ka ahna nin fudud ma ahan waa nin maaragtay meelo badan ku xiran runtii waxaan isleeyahay waxaa la yidhi gacantaadan gooyinkani waa la dhunqadaa axmedoobe hadda jaaniskiisu ma fududaan isleeyahay in lala olayto waxaa ka fiican in lasoo dhaweeyo